40 كالنووي جرداني رحمه الله شرحي سوحه كشة قصة عجيبة حديث كاس رابعة رضي الله عنها بين يدو تكنيسة أيو ننتوق أقل كي يقول صوت عيبا ليدي مركاسو أركي هويني يسكت تكنيسة أو أن إن يرنا عن عبسنين ما عبسنيسو وين مقاشا شنقدع إنو توق أقل كي يقول صوت عيبا أركيسا لكن ما دقاقين ما شهدين كما دقاقين صلاة كما يبحن وعلى وحي أقل كألابو طالة ألابو يقوليني وحي يالي مركو ورسلو يلي بح الردي وكسو قليبا كون نقطة مارك تاني قدار بيكون نقطة دربي مركاسو يابي وصال نقضي حدنا وحوري هالكاد كسو قشي هالكاد كسو قشي معين الباب كو فرين هو أركا مرة اللي مركو الباب كسو قارنا وحو أركا الباب كو حرام دربي ومضحة كو دفتا قدار مركاسو يابي هذا لا أصول نقول دركشي كي ودبوقات دركسيوني مركاسو هل كيلو سلي وات هل كات كسو قشي فرانا كبح مركو قارنا ماشي وحرانتا هايبا alaabtii uu sitay oo dhan buu u dhigay baa leeyahay ilaa salaada ay ka baxay sayidii uu sugay wuxuu yiri kolka salaada ka baxday buu ku yiri wixii aan ka qaato aniga ku dhigay albaabka halkuu iga xigay sheeg buu ka yiri 40 ka nawawiga ayuu ku sheegay jardani sharaxaas qasadaas markaas ay ku tiri anigu albaabka ma xidhin albaabka xagga sare laga xidhaa beetan xagga sare ma doonaysaa in albaabka laga furo ha toobadkan bay ku tiri ballan qaad ilaahay inaad u noqonayso oo dambi aad ku dhacay oo tuugada aad dhaafayso ilaahay u ballan qaad oo iga ballan buuri maanta laga bilaabo inaad toobad keeno hal mar kaliya markuu sida ay tiri albaabkii waa kaasa ka bax albaabkii buu ka baxay way sujuudo waxay tiri yaa rabbi anigu waa ka qoloftiisii waa soo jeediyay qalbigiisa adiga ku shaqal ilaahu qalbigiisa soo jeedi bay ku tiri sidii buu ku toobad keenay نبى مالين دو تقص عجيب أي شيء لبا كوني تضبيه طبنكي ودنا ذا الاسمه هذا G20 جي لبا تنك ودنا أدونك أبور شد بدل مال قبلنا دو دي بشر ودك جنيف ليه بس كوي مدن دكتور كو قوم بدنا عالم كانوا يكون عزوم مدين شركي وحيد هذا الرجني والرجي أدونك أقول قالها بدنا nin walba keligii buu diyaarada leeyahay rag waxa ku jira wadana dhan ka maal badan wadana dhan qaar baa 6 wadan ka maal badan 6 dawladood isku tagay qaar ka dhaqaale badan yihiin waxay leeyihiin laakiin raaxa ma hayno maxay yiraahdeen raaxa ma hayno dawooyin badan waad hesheen annaguna waxaan diyaar la nahay inaan nimaal gelino ee waxaad keentaan cimriga bini aadanka sidii loo biirin lahaa daawadeeda doondoon keena bay yiraahdeen cimriga waxa raaxadii naga qaaday waa dhimanaysa taasaan hor taagan gabowgii waa la tacaalaa bay yiraahdeen oo dawooyin iyo isboor iyo waxbaan sameeynaa bay yiraahdeen haye iyo cunto fiican iyo لكن تنهر تاجنين هبيك كسر حلنا هاي وموتك حلو كنا مكاني كرام هر مكاني كرام يا مكاني كرام لكن دقيقة قصة كله صدق نبى النبي عيسى عليه السلام صدق ولا السعودين أي مادين مل بنانك وذهب كيالو دايماً مركز النبي عيسى كويد وحن ودايماً والذهب والجوهرات مركز سيد هذا النقاط مركز نبي إلى هاي صدري هي أدوية مال موضة مرتبو كيدي مركز ده أنا كقاعدنا هنا ده هذا القاعدة تاني راعي مثلا واديك هدينا وقاعد بودي ديني أدوية اسمه راعي أبو كيدي والنبي الزاهد والنبي عيسى عليه السلام صدق دين ويكهرين بلد النبي أي أندر ذاك مركز الذهب كي قاتان وإلا السعودان وإلا اللقيين magaaladii markay u dhawaadeen bay yiraahdeen hadaan maalin gal wala naga dhici habeen ku beegno laakiin waa gaajoonayna way tashadeen waxay yiraahdeen laba dahabkaasi ilaaliso midna magaalada intuu tago cuntaha noo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolku ka dhaqaaqay
labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankiiba dhiigga bini aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeenna buu nagu fiican yahe ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha han ku ridno han ku aasno dahabkana labadeennu han kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoonbuu kugu fiican yahe cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaasi halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga laba qiso cajiiba qur-aanka ku taalla labaduba waa ina nuux iyo ina ibraahim qisadii nebi nuux inankiisa markii ummaddiisa la halaagayey waa kii ilaahay ku lahaa doon samayso nuuxow adiga wixii ku raacana doontaa saar ehelkaagana doonta ugu yeer inay fuulaan waa kii nebi nuux inankiisa u yeeray ku yidhi qaala yaa bunaya irkab macna walaa takun maca alkaafiriin qaala yaa bunaya inankaygi yaraayow irkab macna nala soo fuul walaa takun maca alkaafiriin kaafiriinta macooga ha noqon buu ka yidhi qaala sa'awi ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala sa'awi xataa aabba ma odhan baa la yidhi ilmo aabbihii u yeedhay ilmo waalidkiisu u yeedhay oo markuu u yeedhay aabbo ama hooyo odhan waaya hada calaamatu shaqaawa bay culimmadu leeyihiin waa calaamatu shaqi waa caaq ilmahaasi sida u jawaabaa laga garanayaa ina nuux jawaabta uu bixiyey eeg ina ibraahimna jawaabta u bixiyey u fiirso ismaaciil wuxuu yidhi yaa abat ifcal maa tu'mar aabba amarka lagu amray buuxi buu ka yidhi laakiin nuux inankiisa wuxuu yidhi sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa xataa aabba ma odhan baa la yidhi dhallinyaradaan sheegayaa iyo ciddii waalidadoodu maanta ay nool yihiinow waalidkaagu markuu kuu yeedho hadday hooya ku yeedhana hooya macaanay dheh hee hooya macaanay hadduu aabbahaa kula hadlana hee aabba macaano dheh waa ilaa haddaad how tirahdid keliya how ba maxaa tidhi hada calaamatu caaqul waalidayn weeyaan nuux inankiisa badbaado ugu yeedhayaa inankiina badbaadadii iska diido wuxuu yidhi buurtaasaan biyaha ka fuulayaa faxaala baynahuma almawju fakaana min almughraqiin baa ilaahay yidhi iyakoo labadooda hadalka isweydaarsanayaan reerkii mawjadihii duufaanka ayaa dhex maray deedna inankiisi waxaa ilaahay ka yeela kuwii qarriqmay kuwii kana waxaa lagu yidhi inii araa fi lmanaami anii adbaxuka fandur maada taraa waxaan ku manaamay anoo ku biraynaya sida neefka xoolaha loo birayo ee aabba maxay kula tahay buu ka yidhi qaala yaa abat ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min alsaabiriin aabba amarka ilaahay buuxi oo yeel aniga hadday noqotona waxaad heli doontaa inaan ka mid ahay kuwa saabiriinta adkayste labada aabba maaha bay culimmadu leeyihiin maaha labada waalid labada aabba maahayna waa labada hooye ayaa kala duwan ina nuuxna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo ilaahay cilaaqa aan la lahayn hooyo nebi nuux aanan rumaysnayn hooyo gaalnimadeeda qarsanaysay oo inankeyga ku lahayd odaygan qaylaya warkiisa ha maqline hor addanahaaga qabso ismaaciilna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo tidhi markii cillada lagaga dhaqaaqay tidhi ilaahayna dayici maayo ibraahim oo da iska soco laanna ilmaha baa la yidhi inta badan tarbiyadda hooyadaa saameysay ee tarbiyadda aabbuhu ma saameeyo inta badan ilmuhu ma hooyuu la joogaa mise aabbo midkuu la joogaa hooyuu la joogaa hadday hooyadu hagaagsan tahayna ilmuhu way hagaagayaan hadday dumarku naga baanaadaanna ciyaalku way banaanayaan waayo dugsiga ugu horeeya mujtamacu ka soo baxaa uu wax ka soo barta waa hooyada haddii dugsigaasi uu noo hagaago uu dugsi diin danaynaya u noqdona mujtamac diin danaynaya soo bixi doona
hadday malcaamadahaas iyo dugsiga uu naga hallaabo uu naga xumaado ilaahay nagama xumeeye waa haweenkan u jeeday hadday haweenku naga xumaadaan waxaad ogaadaan jiilalka soo socdana way naga qalloocsameyn ogaada. marka dumarkeenna, xaasaskeenna, gabdhaheenna, hablaheenna inaan diinta ku tarbiyadaynaa waxay ka dhigan tahay mujtamaca soo socda hagaagiisii baa ku xidhan. gaaladuna laba qolay ku dadaalaan maanta, laba qolo, dumarka iyo ubadka, labadaabay naga soo galaan. odayaasha dan uma leh, ragga dan uma leh, gaaladu labaday ku dadaalayaan maanta waa labadaas. waayo jiilkan maanta jooga waxay leeyihiin hayna dhaafaan, laakiin jiilalka soo socdaan bedelaynaa bay gaaladu ka fikirayaan inay bedelaan. lidalika nebi nuux calayhi salaam islaamtiisu maadaama gaalad ahayd oo gaalnimada qarsanaysay, tarbiyadda inankeyga iyadaa saamaysay. ismaaciilna aabbihii kuma agbarbaarin, hooyo ku agbarbaaray, tarbiyaddii hooyadii baa saamaysay. hooyo caynkeeya, hooyo ilaahay ku xidhan, hooyo cidna markii lagaga dhaqaaqay tidhi ibraahiimo ma amar ilaahayba haa, ilaahay nima dayacayo socabay ku tidhi. ilaahay waa ilaaliya. ibraahim inankiisii ma gowricin. ibn qayim aljawsi raximah llah wuxuu yidhi maqsuudku ma ahayn ilmaha gowrac, maqsuudku wuxuu ahaa jacaylka alla mooyaane jacaylada kaloo dhan qalbigaaga ka sar.